waa dhismaha wadada wadaagsin waddo isku xiraysa dekad ay maraakiibtu ku soo xirtaan ilaa kastama ay badaacaduhu isaga kala gudubto. Mashruuca dhismaha wadadan oo hadda si dardar leh u soconaya waa mashruuca ugu weyn ee jidda si isku tashiga uga dhismaya Soomaaliya iyo guud ahaan gobolka Bariga Afrika. Waa hindise heerar kala duwan soo maray 303 kilomitir iyo ballac 100 mitir ee wadadan oo qaadatay 3 ga oo loola jeedo Garacad, Gaalkacyo iyo Galdogob ayaa saameyn isbedel oo kobac dhaqaale ku yeelanaysa gobolka Mudug guud ahaan Soomaaliya iyo wadamada kale ee gobolka ugu horeysa Itoobiya oo ay gaari doonaan badeecadaha ka soo degaya dekada Garacad. runtii wadadan waa wado dheer, waa wado isku xirta dekada Garacad iyo kastanka Tuurdibi ee dhinaca galbeedka ugu geeseeya xuduudda Soomaaliya ama Puntland ay leedahay Itoobiya. waa wado ahmiyad ganacsi runtii hadda ku fadhida. waa wado dhulka mataqaana landlocked ah ama aan lahayn badda iyo xeebta midna oo shucuubta badan oo geeska Afrika ay ku nool yihiin. wado il dhaqaale u noqon ka dhaweeye si fududna badeecada ka timaada dekada Garacad ay ku gaari kadho dadweynaha Itoobiya gaar ahaan gobolka Soomaalida oo xuduud la leh Soomaaliya inteeda kale. runtii wadadan iyo dhismaheeda waqti badan ayaa dayactirkeeda iyo dhismaheeda laga shaqeynayay qaab gravel ah ama jay ah. muddadii hadda Puntland ay dhisnayd oo dhan inteeda badan gudiyo kala duwan ayaa gacanta ku hayn jiray iyadoo mar walba ay la dareensanaa ahmiyadda ay leedahay iyo deegaamada ay isku xirto. laga soo bilaabo ilaa 2000 gudiyo kala dambeeyay ayaa runtii wax ka qabad ku sameeyay taasoo sahashay isu socodka magaalooyinka Garacad ilaa Galdogob waqtigeedii. laakiin hadda maadaama ay dekad laga dhisay Garacad waxaa korortay muhiimadii iyo isticmaalkii iyo sida ay u daneynayeen dadweynaha Soomaaliyeed iyo dadka geeska Afrika. sidaas darteed waxaa laga maarmaan noqotay wadada tan in loo qareemo, wadada tan in la dhiso, wadada tan in ahmiyadeedu ay noqoto ahmiyad heer gobol ah. shaqada dhismaha iyo dayactirka leh waa mid 30 kilomitir oo kasta wadadan kamid aad ku arkaysid. halkan deegaanka Mareera waa mid kamid ah goobaha ay ka socoto shaqada dhismaha wadada gaar ahaan inta isku xiraysa Garacad iyo degmada qadiimiga ee Jariiban waxaana ka shaqeynaysa shirkadda TTN. waxaa ila jooga maamulaha TTN u qaabilsan dekada iyo wadada isku xirta Garacad iyo Mareer. hadda ilaahay mahadis waxaan joognaa meel gabagaba ah. wadadu waxay ahayd meesha ugu liidata Mareer iyo Garacad inta u dhaxaysa wadadan wadaagsin. wadadu marka waxaan u qaybinay 2 qaybood. meesha la yiraahdo bacdada oo ciidtuurka ah ilaa iyo Mareer oo 16 kilomitir ah iyo inta ciidtuurka iyo Garacad u dhaxaysa oo 12 kilomitir ah. waxaa hadda noo soo dhamaaday 16 kilomitir oo isku xireeyay Mareer iyo bacdada. waxaana hadda 3 kilomitir soo dhaafnay bacdadii magaaladiina waxaa nooga haray wax 8 kilomitir insha Allah meelahaas ah. waxaa ilaahay mahadis ah in 45 daqiiqo meel lagu tagayay oo Mareer iyo Garacad 45 daqiiqo hadda ay 15 daqiiqo ay u soo dhacday oo gaarigu 15 daqiiqo uga kala soconayo Mareer iyo Garacad. guddi gaar ah ayaa dhismaha wadadan gacanta ku haya waxaana si faahfaahsan u soo bandhigeen ilaa hadda goobaha laga shaqeeyay iyo halka uu maraya dhismaha wadada. wadadu hadda waxay ka socotaa 4 goobood. waxaa dhammaaday goob ka mid ah oo cabirkeedu iyo 14 kilomitir oo u dhaxaysa Buubi ilaa Birxoog. waxaa hadda gabagaba Garacad ilaa Mareer oo 30 kilomitir ah. waxaa kaloo meel kala bara maraya ama dhexdhexaad ah 48 kilomitir oo gacmo faleela Gaalkacyo ah. waxaa hadda bilow ah oo shaqadeedu socotaa Gaalkacyo ilaa Galdogob oo 67 ah. intaasaan rabaa inaan runtii u sheegno bulshada lana wadaagno. wadadu waa wado garaafala ama jay ah la rabo in si wanaagsan gaadiidku u maro. runtiina ay ka qayb qaadato isku socodka bulshada iyo gaadiidka iyo dhaqaalaha iyo wax soo saarka gawayaasha dhaqaalaha.
waa wado aan rajaynayno insha Allah muddo dhow inay ku dhamaato haddii alla idmo iyadoo garaafal ah insha Allah laamigiina ka dambeyn doono ama la heli doono. mar horeba gaadiidleyda ayaa sheegay dayactirka iyo dhismaha wadadan in lagu gaaray masaafo kooban ay u kala soconayaan gobolka Mudug. waxay soo bandhigeen sida ay diyaar ugu yihiin dhamaystirka wadadan isku tashiga inay door muuqda ku yeeshaan. magacayga Maxamed Axmed baa la yiraahdaa waxaan ahay dadka wadadan ka shaqeeya wadadan awl dhib baa ku qabnay hadda inta yaroo la sameeyay awl waxaan ku soo mari jirnaa hal saac iyo bar haddana waxaan ku soo marnaa 10 daqiiqo 15 daqiiqo waxaan u socdaa Garacad waxaana ka imid jiriiban meel ka sokaysa ka soo kacay oo ka shaqeeya waxaan leenahay wadankeenu weeye nolol dhisaayo dadku waa inuu ka qayb qaataa cid kasta ay yihiin. magacaygu waa Yuusuf Maxamed Cabdille Yuusuf Boosay weeye meeshani waxa weeye Mareer weeye waa jidkii cusbaa jidkaas ayaa naloo sameeyay jidkaas oo faa'iido weyn aan ku qabno oo Soomaaliya oo dhan ay ku qabto annaguna gaar ahaan aan degannahay jidkaas faa'iidada aan ku qabno waxa ka mid ah baabuurka birtiisu aysan naga jabaynin oo noo hagaagsan tahay meeshii waqtigii dhow aan tagayno oo maartay isla markiiba maartay aan tagayno jidkii oo si wanaagsan loo sameeyo shirkadu ay si wanaagsan u sameysay ma sha Allah waxa la doonayaa maadaama ay sidaas tahay in dadku deegaanka jooga ama gobolada jooga inay ka qayb galaan oo qayb libax ka qaataan oo meeshaas waxa la rabaa haddii alla idmo gacanta la saaro ma sha Allah Allah idin barakeeyo. bilow ilaa halka ay maanta joogta wadadana waxay ku dhismaysay dhaqaalo inta badan ka yimid bulshada deegaan walba oo dhismaha uu soo gaaro waxay hadda si la maqli kara u sheegeen inay ku bixin doonaan xoog iyo dhaqaale waxay wadadan uga baahato. halkan wadada kambaniga wadaagsi wuxuu ka dhisay wado 14 kiiloomitir oo magaalada Buubi iyo barigeeda ilaa Birxooga ma sha Allah iyagana ugu mahad celinayna cidii kale oo ka qayb qaadatay waxa weyn baa iska bedelay magaaladan iyo deegaankan waxay noqotay magaalooyinka waaweynaa oo kale populationkii gaadiidkii intuba waa ka faa'iideen. magacaygu waa Cabdiweli Garaase Xasan Ciise waxaan joogaa magaalada Dhagxanyacado oo hoos tagta degmada Gaalkacyo boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynaynaa hawshaas dadka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka Puntland joogana waxaan aad ugu xajinaynaa ama ugu adkaynaynaa hawshaas inay taageeraan deegaan ahaan annagu magaaladan aan degannahay qowl iyo ficil maal iyo muruq iyo maskax iyo aqoon intaba diyaar waxaan u nahay inaanu soo dhaweyno wadadaas. magacaygu waa Burhaan Axmed Xasan deegaankanu waa Bayra waa soo dhaweynaynaa kambaniga wadaagsin ee hawlwadeenka ka ah dhismaha wadada Garacad iyo Galdogob ilaa Turdibi isku xiri doonta waana soo dhaweynaynaa ahmiyad gaar ah iyo farxad gaar ah oo gooniya ayay noo tahay inaan nasiib u yeelno inuu soo maro laamiga ka soo bilowda Garacad ilaa Turdibi waana soo dhaweynaynaa wax kasta oo contribution ah oo annaga reer Bayraad nala ka rabo waa ka qayb qaadanayna. waa Cabdisamed Aadan oo Yuusuf meesha aanu joognaa waa Barwaaqo magaalada Barwaaqo weeye gobolka Mudug u dhaxaysa Galdogob iyo Bayra. alxamdulillah rabbil caalamiin waanu ku faraxsanahay wadada hagaajinteeda iyo guddiga wadaagsin waanu soo dhaweynaynaa dan baana noogu jirto oo Soomaalida dhan iyo guddiga iyo dan baa noogu jirta waxaanu marka ugu baaqaynaa dadka kale oo Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan annaguna waan soo dhaweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa. magacaygu waa Maxamed Food Maxamed gudoomiyihii Xero Jaalle waa soo dhaweynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa haddaan nahay meesha Xero Jaalle waa soo dhaweynaa wadadaanu waxa weeye maanta faahfaahin uma baahna faahfaahinta u baahan tahay waa wax ka qabad iyo in la soo dhaweeyo deegaan kasta ay soo mardo. hamiga sare ee dhamaystirka wadadan wadaagsan kaliya kama imaanaya reer magaalka iyo deegaanada magaalooyinka ee reer miyiga iyo xoolo dhaqatada ayaa arkaya fursado kale oo mashaariicdan ay u soo waaridayaan oo ay ugu horeyso dhoofka xoolaha. magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Saciid Liibaan Cali anigu waxaan nin xoolo dhaqata xoolaan leeyahay
waa ku bixinayaa waxa ballana xoolahayga wixii layga soo baahdo oo aan awoodi karo inaan ku baxsho baa ballana haddii ilaahay idmo waxaan leeyahay dadka reer miyiga ah inta maqashay iyo intaa maqalla waxaannu gaadhsiinaynaa waddada inaannu dhisanno naloo dhiso aannu hadduu ilaahay idankeeda dadka dhisahaya aannu horumarkaa ay wadaaniin la garab istaagno waddada tani waxay faa'iido u tahay dad walba cid walba dadka yaga reer miyiga ah faa'iiday noo tahay waxaa nooga dhoofaya coodkii waxaa nooga dhoofaya cadkii waxaa nooga dhoofaya caanihii haddii aannu caanaha la soo aadno 5 daqiiqo ayay noo tagaysaa haddaan garaac la rabnay haddaan jariiman la rabnay haddaan gaalkacay la rabno waa goob kale oo dhismaha waddadan ay ka socoto injineerada ayaa sheegay rajo muuqanaysa oo ay ka qabaan waqti hore oo lagu gaaro dhammaystirka waddada gaar ahaan qaybta isku xidhi doonta garacad ilaa magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug halkaa oo inta badan lasoo dhammaystiray iyadoo ay shaqadan qabanayso shirkadda wadaagsan magacayga waxaa la yidhaha jamaal cismaan nuur waxaan ahay madaxa shaqada u qaabilsan wadaagsan waddadan waxa weeye hadda fayskani waa gacanafale ilaa gaalkacyo oo 50 kilomitir ah baan rabnaa hadda fayskan labaad fayska koowaad waxaan ka soo shaqaynay meesha la yidhaahdo birxoog ilaa yaboobi oo 14 kilomitir ahayd waa soo dhammaynay shaqadan waxaa wada oo hadda wada shirkadda wadaagsan ee dekadda garaaca dhistay waxaan rajaynayaa waddada 300 kilomitir oo 3G la yidhaahdo baa qorshahaygu yahay fog inaannu dhammaystiro xudunta jidka iyo barbilowga dhammaystirka waddadan waa magaalada xarunta ah ee gaalkacyo ee gobolka mudug oo hay-adda waddooyinka puntland ee BHA ay gacan ka geysanayso dhismaheeda waana mid ka mida goobaha ay ka socoto shaqada ugu ballaaran ee dhismaha jidkan anigoo ah injineer maxamuud daahir siciid agaasimaha waaxda dhismaha iyo dayactirka hay-adda waddooyinka puntland iyo guddida waddada wadaagsan waxaanu nimi saaka halkan oo ay ka socoto dhismaha waddada gacma fale gaalkacyo goldogob tiimka halkan saaka jooga iyagu shaqada ay qabanayaan waa dhismaha waddada gaalkacyo goldogob waddada tan dhismaheedu wuxuu ku bilowday 2 qaybood qaybta hore oo ahayd in waddada la kaleergareeyo set clearance lagu sameeyo la nadiifiyo iyo in la saxo aleematiga waddada shaqadaas oo muddo bilaa soo socotay maanta waa soo gabagabowday waxaana loo gudbayaa qaybtii labaad waddada oo ahayd dhismihii waddada iyo in la keeno ciiddii carakaawadii 303 kilomitir oo ku soconaynay waddadan wadaagsan waxaan soo gaarnay degmada galdogob albaabka mashaariicdan isku xiraya ee dekadda iyo waddada xiriirinaysa ay ka galayaan dhulweynaha Itoobiya guddiga waddadan wadaagsan oo inta aan socdaalkan ku jirnay wacyigelinka qaybgal iyo taageero ee waddadan ka waday deegaanada ay marayso ayaa halkan galdogob kulamo ku qaatay sidoo kalena booqday kastamka Turdibi halka noqon doonta meesha ay badaacaduhu iska kala gudbi doonaan iyadoo degmadan galdogob ay dhankeeda soo bandhigtay siday u qaadanayaan door taageero oo dhammaystiran haddaan nahay bulshada reer galdogob waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa horumarka socda waxaan garab taagannahay maadaama aan qayb ka nahay oo kastamkii Turdibi oo degmadan galdogob ku yaallo xadka saaran yahay galabta aan joogno waxaan qayb awalna ka ahayn haddana qayb lixaad la ka qaadanayna runtii hirgelinta jidka weyn isku xiri doona bacdama uu yahay halbowlihii ganacsiga Soomaaliya iyo Itoobiya isku xiri lahaa bacdama uu yahay halbowlihii labada xarumo dekedood isku xiri lahaa bacdama uu yahay guddiga gaarka ah ee shirkadda wadaagsan u xil saaratay kastamka Turdibi waa bogaadinayna dadaalka ay wadaan mashruuca mudnaanta leh si looga miro dhaliyo guddiga gacanta ku haya ayaa la wadaagay hogaamiyaasha Soomaaliya bulshada gobolka iyo guud ahaan Soomaalida in laga qayb qaato sidii loo dhameystiri lahaa waa kan gudoomiyaha guddiga waddadan wadaagsan oo sidoo kale u mahadnaqaya dhinacyadii hore uga qayb qaatay guddiga tiradiisu waa 17 xubnood shaqooyin badan ayaan qabanay runtii hadda intaan jirnay oo ah inaan waddada in ku dhow 3 meelood oo meel wax ku dhow inaan hadda shaqo laga qabtay inta kalena rajaynayno in shaqo laga qaban doono haddii lahayd bulshada Soomaaliyeed dhammaanteed ay ugu horeeyaan hogaamiyaasha Soomaalida dhammaantood heer federaal iyo heer dawlad goboleed iyo heer kasto ay yihiinba hogaamiyaasha Soomaalida waddadan la yiraahdo wadaagsan oo garaacad iyo Turdibi galdogob isku xirta waa waddo runtii muhiim u ah
nolosha dadka Soomaaliyeed amniga iyo dhaqaalaha labadaba saad ogtihiin adduunku maanta waxyaalaha ku horumar waxa ugu horeeya waa infrastructure-ka wadooyinka iyo aeroboorada iyo dekedaha wadadaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala inay ka faa'iidaan bulshada Soomaaliyeed dad aad u fara badan shaqo abuur fara badan inay ka abuuranto isu socodka ganacsiga iyo isku xirka ummadda Soomaaliyeed dhamaanteedna inay u noqoto halboolo ayaan rajaynaynaa sidaa daraadeed waxaan ka codsanaynaa dhammaan hogaamiyaasha Soomaalida inay taageeraan wadadaas oo lagu bilaabay ilaa iyo waqti hore oo hore ilaa iyo haddana ay markii dekadii ay meel gabagaba marayso aan hawsheeda dib u bilownay waxaan ka codsanaynaa dhammaantood inay naga caawiyaan wadadaas inay noqoto waddo laami ah waxaan ka codsanaynaa inay facekan hadda aan ka shaqaynayno oo ah rakaawada inay naga caawiyaan waxaan kaloo ka codsanaynaa codsi u diraynaa shirkadaha Soomaaliyeed oo qalabka birta culus leh inay naga caawiyaan oo nala fududeeyaan wadadaas wax ka qabashadeeda waxaan guud ahaan dadka reer Mudug ka codsanaynaa annagoon u kala saarayn maamulo iyo deegaannimada dhammaantood waxaan ka codsanaynaa wadadaas inay tahay waddo ay wada leeyihiin dhammaantoodna inay ka wada qayb qaataan dhismaheeda guud ahaanna waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed inay baraare iyo horumar gaarto waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku soo gabagabo inaan u mahadceliyo dawladda Puntland oo runtii ka qayb qaadatay hadda qalabkeediina uu yahay qalabka ka shaqeynaya hadda qaybtan gaalkacyo galdogob oo qalabka hay'adda wadooyinka BHA markastana la galab taagneed garab dhaqaale iyo garab engineeringka iyo shaqada socota controlkeeda intaba ah inaan u mahadceliyo waxaan kale u mahadcelinayaa dhammaan ganacsatadii iyo dadka reer Mudug cid walba oo na taageertay waxaan codsanaynaa cidiina taageertana inay taageerada noo sii badiso cidii noo soo wadana inay noo soo dhaqsato oo na taageerto wadadaana runtii waa waddo kulligaan wada leenahay waxaan kaloo rabaa si gaar ah inaan iyagana ugu mahadceliyo shirkadda wadaagsin arrinta ay tahay ugu dambeyntii inaan sheegno ayaa ah in mashaariicdan ay si dhaqso ah u bedeleen sawirka mustaqbal ee gobolka iyo fursadaha ku geedaaman ay bedeli karaan nolosha bulshada Soomaaliyeed saamaynta oo gaari kardha dhammaan dhulka Soomaaliya iyo wadamada kale ee dariska